السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. walaalayaal meel lagu nagaado masaajidka ugu khayr badan, hadal la maqlo oo la dhageystana waxa u khayr badan waa hadalka Ilaahay jalla wa ala iyo hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam. kulligana waan baahannahay oo Ilaahay baan u baahannahay. yaa ayuha nnaasu antumul fuqaraa, Ilaahay baa leeyahay ayuha nnaasu dadow antum alfuqaraa, kuwa baahan baa tihiin baa Ilaahayna leeyahay. laakiin maxaad u baahan tihiin? Ilaahay ma dhihin lacag baad u baahan tihiin, Ilaahay ma dhihin cuntaad u baahan tihiin, Ilaahay jalla wa ala ma odhan daaro iyo aqalaad u baahan tihiin. Ilaahay wuxuu yidhi antumul fuqaraa'u ila Allah, Ilaahay baad u baahan tihiin. mar walba bini aadanku waa kii baahan, baahi fara badanna gudaheena waa lagu abuuray ogaada. dharka baahi baad u qabtaa, aqal iyo hoy baahi baad u qabtaa, cunada baahi baad u qabtaa, acabka biyaha baahi baad u qabtaa, oksijiinka hawada baahi baad u qabtaa, xaas iyo ubad inaad yeelatana baahi baad u qabtaa, kasbi iyo shaqo inaad yeelatana baahi baad u qabtaa. waxaa soo baahiya isku wadagee. baahida ugu muhiimsan ee bini aadanku ay leeyihiin waa hidaaya, alhidaaya. waa mas'alada keliya ee ku soo aroortay suuratu lfaatixa, oo qofku mar kastuu tukanayo, hadduu fara tukanayo, hadduu sunno tukanayo, uu leeyahay ihdina siraata almustaqiim. baahida bini aadamkuna way kala weyntahay ogow. baahi baad u qabtaa dhar, baahina waxaad u qabtaa daawo. dharka iyo daawada, dharkaa muhiima. haddaad iminka aqal aad tagto oo tidhaahdo labada baahi bay haysa, daawona waan u baahanahay, dharna waa dhar la'aanna way haysaa, waxaa lagugu jawaabayo lagu odhan war annagu daawo lacaguma haynee, laakiin mare aad cawradaada ku asturta waan haynaayo hoo baa lagu odhan. haddana baahida dharka aad u qabtid iyo baahida bini aadanku ay u qabaan maaragtaanay cunnada, waxaa muhiima baahida cunnada. haddaad tidhaahdid dharna waan u baahanahay, gaajana way haysaa, waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo dharkuuma hayna haddee, laakiin waxaan ku haynaa cunee, bal cunnadahan ku siina fadhiiso. laanna ilaahay waa og yahay shayba shaygaad uga baahi badan tahay buu ilaahay ka dhigay rakhiis. adoo haddana laba baahi ay ku haysaa aqal wada garaacay, baahida cunnada iyo baahida acabka. waxaad tidhi gaajana way haysaa, oonna way hayaa, aalo cunta xaafadda xilligan ma taalle, laakiin biyaha yaalle, biyahan ku siina fadhiisa baa lagu odhan. biyihii buu ilaahay ka dhigay rakhiis. baahida bini aadanku ay u qabaan biyaha iyo baahida bini aadanku ay u qabaan oksijiin hawada, midkee muhiima? oksijiinka ilaahay waxa uu ka dhigay free, cid kugu kontaroolaysa ma lahan. meel kastoo tagto hawada waad helaysaa. baahida aan hawada u qabno iyo baahida aan u qabno hidaayadda waa ilaahay macrifadiisa.
وإلهي قرشديس جل وعلا وإن إلهي قلبك إسلام نمضى وكشرح إنه تهي دين حقه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام آيات داس مركي سود دكتي ونبينا عليه الصلاة والسلام وصحابة دشوا كو أخريي قفك إلهي جل وعلا ولد معين وحنونيو لا ابتساء إلهي كشرح إسلام نمضى إنه حقه مركب النبي عليه الصلاة والسلام وحوري هداية والنور نور كإلهي ويان عدك لما هيسو قفك إلهي نور كقلبك يسوء قليب ورسولك يدي قفك حبنه سأيا أججبنا ذا إلهي إني أضيعان هذا النور كاسي قلبك قال الله إنه قليب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نهدي به من نشاء من عبادنا بإلهي ونور كاس إلهي ما ينعدك لما ملكدو قفك إلهي ودونو قلبك سنورك كتورا الله إنه كتورا آمين هذا ولا ليال مركب صحابة إلى النبي الله ونور كاس قلبك إنه قال وح على ماذا الله قرت ميجر زمان الله شيء مركب النبي يقول ها التجافي عن دار الغرور بالنبي يقول قفك إلهي قلبك سهداية نور الهداية قفك قلبك سأي بيدك توحى الله قرتها التجافي عن دار الغرور دار تنددك الدقيسة خيالك بنبنت كسراب بقيع إلهي كتل مامي أي قفك إلهي قلبك سكجديا مقيمة أدوية ولا دتك أدوية هيستنا مقيمة ماشي أدوية لقاها الله ينا مقيمة والإنابة إلى دار الخلود بالنبي يقول صفات الله بعده النبي يقول كل شيء قف قلبي النور كإلهي وقلي على مدى الله بعد اللي قرت وحى كمدا دارت الله واريا بين آدمكم مرنا أيسن كجورين الله إنك وجنة دارت أسوقفك مؤمنك جعل الله برسولك يري قلفتي سوم بأدوية تعلم ويه مؤمن كقلبي سجنة ويا الله سيد صحابي أبو الريحان رضي الله عنه غزوة بكسر نقضي زمن كان نبينا عليه الصلاة والسلام نكم مركو دين تدالك يجي جهاد كأوبحه أما دعوة أما دمشق اللي قلت لنا يلا بدأ بدون بلفلين الله صار نقنعيو لكن أبو الريحان وحى إلى هاي النبض سوعلي يسوى النبض قبح لأن مرة اللي مركو صلاة عشاء وتكذي بجورجي سيتجي هوين يدي سيو ديار عيا كسو بودو مركز كويري إن يرلا بركة عن كذا إيكادي بكيري تحية السنه صلاة العشاء هكذا بيس إياكو جوريها إلا تجيين إنك ما أنتوا حلا جاي بعدك مسلمين تو سنة أنا مسجد بكتو كدان فرائدنا مساجد بكتو كنا صلاة الضون كتو كذب ونبي يقول صلاة وقفل بدن وصلاة وقف جوريجيس كتو كنا إلا فرد كمويانه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كستو فرد مركو النبي كبح وعد مجدناي أما أمد وحبراي أما النصيح أمد وجدناي أما كوا صو إسلامي بدين تبراي أما كقرآن كلبراي أبو رنجر محل كبراي أما مرتدى مسجد كتيمدي النبي يقول لفري سنة أما سنها وح النبي قال لك سو أروريين وجوري صلاة دونجر صلاة سنها عدد أبي الصحابة لهايين سي أي جوريهنا أي بركة صلاة هي النحريس صلاة كسو دقيس أي جوريه نصيب ويا شام وإلمها يرنو أكبر باره هي أبو عبادي سنة يو دين له أي النبي يقول نوجو جدي صلاة لقوت كذا صلاة سنة ولا تكذا صلاة وقفرت وقفل بدن وصلاة وقف وجوري سكوت كان إلا فرائد مويانه أبو ريحان صلاة دي بجوري يقول لي مدي هوين دي سبا كسو بدو مركز كويري إيه كده هنسون نسته لا بركعوت كذا سدوا لا بركعوت أجنا وحوم مغلي مؤذن كي أو واقع صلاة الفجر كي حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح سنه بو خفيفي مساجد كي بو تجي وصوته كذي برقاسي سكتي كتر يا أبا ريحان غزوتا إلهي درتي بعضو بحضو جهاد بعضكم مغنيت واد سود داشو سفرنا واد كتم يدي أضو النبض قبنا إلهي وأنوكا سوعليي أنا قونا حالي أردن فراش قدوشي إنسان كوكو سوغايي أنا قونا صلاة بعد كجرتين ميانا الحق أنا كوكو لهين بيكتر مركاسو كويدي حالي تولي هل مر أو كليا حداد مسكحديدا ku soo dhici lahayd xaq wad ugu yeelan lahayd buu yiri laakiin marna kuma xasuusan buu ka yiri oo maxay ka mashquuliyay wuxuu xuur al-aynta
iyo naciimta ilaahay jannada ku sifeeyey buu xalay qalbigaygu joogay buu yidhi bilaahi calaykum iminka inteenna halkaa masaajidka soo gashay haddii la yidhahdo war 10kii daqiiqo eed salaada aan imaamka gadaashiisa ku tukanaynay qalbigeennu halkuu ku maqnaa maanta waa labada marxaladood ee la garto qalbigu ma saliimba mise waa mariid qalbigu muu bukaa mise uu caafimaad qabaa laba marxala la gartaa laba marxaladood cinda salaa markaa salaada tukanayso kow iyo cinda almusiiba markay musiiba kugu dhacdo waa labada marxaladood ee lagu teesteeyo qalbiga muu caafimaad qabaa mise uu bukaa salaada markaa tukanayso 10 daqiiqo 12 daqiiqad imaamka gadaashiisa aad ku tukanaysid qalbigaagu xagee buu ku maqnaa lidaalika ibn qayyim al-jawzi rahimahullah dadka salaada tukanaya shan buu u kala qaado wuxuu yidhi qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yidhi waa kuwee waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeedii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yidhi fawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabayaa baa la yidhi qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoogu xaadir maaha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwaana salaadoodu ilaahay bay hor taallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaada jamci iyo jamaacaddii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shaydaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinayaa haddana uu la tegayaa uu ka soo celinayaa kaa salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinayaa baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaane awliyada istaciinuu biالصabri والصalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday cedeedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaaraa loo jideeyey istaciinuu biالصabri والصalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxay han ku raaxaysanne xubiba ilayhi min addunya halaaث adduunka waxaa yaalla saddexba aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey aiibu waxa wixii uduge udgoon والnisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wajucilat quratu cayni fi الsalaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaadaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyaku inay salaada ku raaxaystaan in salaaddu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyadaba ay ka tegaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaada xidho haabit albunaani baa loodhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay sead ku hesha adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay lilmada ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli الsalaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu yidhi salaadaas kayfiyadda salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yahow anuu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaagin salaadda xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaadda inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابدا سي واحد أديكو هادو جيدود أركيسو حداد أديكو أركين إلهي جل وعلا يساقاكو أركايا وحولي مركا
waxaan ka fikiraa markaa salaada dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaado leeyay ilaahay baa ku yeedhay xisaabta lagu yeedhay soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dambeeyay oo la qaaday kii iga horeeyay oo la qaaday waxay salaadu ii dhamaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku hadhay hadda ilaahay ku yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta baan salaadeeda ku dhamaystaa buu yidhi ay raisli ninkuna dareenka ku dhamaysataan masaajid annagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين وركعتي إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكجرا صفقة هوري صلاة مركي لقى بحيب إمامكم يدي ورأمين تلا بدل كذا كنتين والله من حقه أم بلابو والله بلابو نمبر والله وأكون ضربه لا إله إلا الله أرجع متضايق الشيخ كواس ويبقى قيلينه واحد ما أنت مسلمين إلا من رحم ربي مساجد كنت كنا يوردن وإن قد قيلين مويانا أدوية دوية كل جا جودها كوضح هذا الله بيقول والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك يقفك النور الهداية أي دكتي وحلقوا قرتابو يدي رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا قدام بين يوم أيو قفك مؤمنك قلبي سجع العذاب رسولك يدي والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يوري رسولك انت قفك مؤمنك أجش وأيسن كوئما أساقا مشهد ديار من منا لا يكره الموت كما أنت مسلمين تا نولش يجريدا نولش جعل له أشياء ماتريال كي العقتة يا عملك الصالحة قلبي إنه هذا دباتة إنه قلت ما دوحوا إلنا يا لعقته إلنا يا وحول العقد ده هيسا مشاكلك ويحل اسمه خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مدوا كلا قرن لا هيبة خالق يا مخلوق إلهي ما دونا يا قلبي عمل كلا إنه وجست إلا حق سمويانه وماشي إلهي أدونك وكفير يبو رسولك لقلبه علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقادة هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونيك الأولا فديك ور ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلى بريدي سي عبسي دي سمو يعني وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب قعمه هو اللبو لقوه هو اللبو عنده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بودده هو اللبو لكن قلبك هو مد كلية بحال قلبك مد لوغا دغاي وحبنت كلية جرك بني هذا كما مشبه رسولك يدي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آذنك هدي حقاك تجرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك محوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آذنك وحي نقونيان حبنا مرنا إلهي عن عسيان كيسا كدعين مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيان دقهيني وحي مقلان بي دقيسانيان قعمهيني وحي الربان بي قبانيان لغهيني ميشي الربان بي آذيان دقالهيني ميشي الربنا كبحينينا هذا الكيني ماشا وحان دوناكو هاللينا وحان دون حسن البصري رحمه الله يا يري صد السنة من قسل أفرت السنة من كفتمن وحان سوغاري الرق يا أقوام وحان سوغاري
aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuug ahaan isku malaynayay buu yidhi waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadalkaa leh 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sidaa leh hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisa ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalina innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adaadu ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey ba anuu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid ee bini aadan xariya kaadila daciifa tahee xay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey xay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhiray mooyaane waxaa nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindha iyo kaadiyo dhiig iyo biyo kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal
kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60kaa sano waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay haddaad 60kaa sano adduunyada aad joogtid aad ku noolaatid addoonnimo maalintaad naftu ay kaa dhacdeed ka baxda adduunyada adiga waxaa ku bilaamaysa xorriyad baa ku bilaamaysa xorriyad nin saalixiinta ka mida kaana yasuuma الnahaar wayaquuma اleyl sakaraadkii markuu qabtay buu qosol bilaabay qosol nin xanuunsanoo qoslay ka warno sakaraada markaas marka waa ma saacaddan aad hadlaysaa baa lagu yidhi ma saacaddan aad kaftamaysaa ood qoslaysaa wuxuu yidhi ohin anu waan dhammaystay buu yidhi maanta laga bilaabaa farxadda ay bilaamaysa buu yidhi ibnu cabbaas radia allaahu canhuma nacashkiisa markii lagu qaaday qabrigii la geliyey haatif waxaa la maqlay aayaddan qur-aanka ku celcelinaya yaa ayatuha الnafsu اlmuطma'inah irjicii ilaa rabbika raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii waayo 9 sano ama dhowr iyo 80 sano waxaa ku dhammaystay oohin buu ku dhammaystay noloshiisa oo dhan maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda cilmiga baro maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda wax baro maruu isagu ilaahay la munaajoodo iyo maruu dadku sida ilaahay u baryaan uu u sheego noloshiisa oo dhan wuxuu ku dhammaystay bayna cibaadatin wa cilmin wa dacwatin buu ku dhammaystay markaa 60kaa sano 70kaa sano ilaahayna siiyey waxaa laynoo keenay adduunyada walaalayaal inaan ilaahay jala wacala aan kula baayac mushtarayno khulayd binu cabdillaahi baa yidhi muuminka 3 meelood in laga waayo maaha buu yidhi 3 meeloodun baad leedahay masjidun yacmuruhu wa beytun yasturuhu wa xaajatin laa ba'sa biha buu yidhi 3daa ayaa qofka muuminka la dooni wakhtigiisa inuu ku bixiyo masaajid uu camiraayo mar salaad buu ku tukanayaa mar qur'aan buu ku akhrisanayaa mar cilmigu culummada ka baranaya mar dadka muslimiinta bilaa salaadee dayacan ayuu u fikirayaayo intuu ziyaarto ayuu masaajidkii culummada iyo cilmiga iyo khayrku ugu yeedhayaa wa beytun yasturuhu qofka muuminka meesha saddexaadee la doon in loogu yimaado aqalkaaga wakhtigaaga ku bixiyo ciyaalkaaga islaantaada la fadhiiso asxaabta rasuulku maskiidka markay joogaanna arday bay ahaayeen guryahooga markay togaanna mucallimiin bay ahaayeen mujtamaca kale markay dhex socdaanna muballiqiin bay ahaayeen difaaca diinta markii loogu yeedhana mujaahidiin bay ahaayeen maskiidka markay joogaan arday abubakar baa wax baranaya oo cumar baa baranaya oo cali baa baranaya oo cuثmaan baa baranaya tacliim wa tacallum rasuulkay ka baranayaan calayhi salaatu wasalaam marna dhexdooday isbaran iyo isbarayaan markay guryahooga tagaanna waa maxay waa mucallimiin weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa ilaahay nebiga rumeeyeyow reerihiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi cali ibn abi aalib wuxuu ku fasiray waa reerkiina diinta bara weeyaan macnuhu madarasad iyo malcaamad iyo jaamacad magaalada madiine cahdiga may lahayn nin kastoo saxaabiya aayadda qur-aanka iyo qowlka uu nebiga ka soo maqlo ayuu habeenka reerkiisa ula tegay uu reerkiisa baraayay markaasaa mar keliya iyo ciyaalkii iyo dumarkii iyo raggii waxay noqdeen bad cilmigoogu meel keliya wada socdo oo cibaadada meel keliya ka wada socda oo diinta meel keliya ka wada socda oo fahmiga diinta meel keliya ka wada taagan mujtamaca waxay noqdeen hadday 500 oo ninoo martiya maanta maskiidka nebi maxamed ay timaado meeshii lagu marti qaadayeyna waa diyaar aqaladii diinta lagu barayeyna waa diyaar mujtamac cajiib weyaan mujtamacaasi guryahooga markay tagaana mucallimiin bay noqonayeen mar alliya markay dadka kale u tagaana muballiqiin aladiina yuballiquuna risaalaati illahi bay noqonayeen difaaca addiini waalwatan diinta markay noqoto difaaceegana mujaahidiin bay ahaayeen bilmaali waannafs naftoodii maalkoogay diinta ilahay ku difaacayeen marka muslimka waxaa la doonayaa wakhtina masaajidkaaga sii wakhtina gurigaaga reerkaaga iyo ubadkaaga sii wakhtina waxaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysid kasbi xalaala saad xaaraan uga badbaadid
saad mas'alada bini aadanka aad uga badbaadid saad u noqotid yadul culya gacanta sarraysa ee la baxaysa sadaqada buu nabigu yidhi ayaa ka khayr badan tas hooseysay dadku wax weydiisanaysa saddexdaa sifaa qofka muslimka laga doonaya saddexdaa meelood laakiin inagu Soomaali haddaan dabeecaddeena ka warrama dabeecaddeena ayaa naga bedeli dad adduunka maqaaxi uu fadhiyo shaah cabaaya oo sheekaynaya oo waxa caalamka ka dhacay la socdo Soomaali uma la hayaa maanta aan ka sheegay baytul maal wadannada Asia wadan kamid ah ayaa nin caalima oo madrasad haya ayaan ziyaartay luqada carabigana xabad yar buu tuuranayay markaas uu yiri min ayna markaas aan ku yiri min Djibouti markaas uu yiri qariib min Makka markaas aan ku yiri ما سمعت طيب صومال قريب من مكة ورا هالكانوا شيء أرض الحبشة قريب من مكة مكة هي مدينة هي عيال كقرآن كودي جاي مويانه عالم كواحد كسر وربك كما هي سنة كنا وحلا جاي أبا كنتن أرضيا وحفظت كتاب الله نصوصار صومال محو صوصار بالشك أفرت السنة كهر وحي ودنك إنه كنت ميبال هذا لا يا إلهيمك وما تصعد وما تشاكين إنسان وما وحنوب بدنها وحن لودرن كو مشغول سن سيدا مركا هرمرا كو غارينا ورلا بدن إن دوده كو تعلبا لغوليه إلا أدويد هذا كو إيغو إلا آخرة هذا كو إيغو وقت قاقنا صدح لنو قيبي 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa masaajida 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa reerkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada xaqeega 8 saacadoodna waxaad ka shaqaysaa kasbi xalaal ah maxaa ka tagay balisha 8 saacadood masaajidka salaadii baad ku tukan waad ka soo horeyn waad ku dambayn quraan baad ku akhrisan dhikri baad ku samayn xalaqadaad ka qayb gali culimada dhageysan dadka caamada dayacan عيد الدمقنيس عيد التجيس أين نجرين ولي بدل يرى وبدن أياد قعنت أنت تصوقبة مساجد كاني يا غلام أسلم غلام يهودي والنبي أخذ مني عليه الصلاة والسلام أي نبي قلت تبي أوي أو بكابا لقيري لقيسو كسعود النبي يركي رأوتك لأن مركاسو النبي قال لي يركي رايو نفتو هديتو لقيق راي هيسو سكرادا حقا مدحو النبي كفر يستي مركاسو يري يا غلام أسلم اسكا إسلام مركا يركي را أبيه بيقو كبقي أبيه با إلهي كسيي أطيع أبا القاسم أبا وركي سيال فأسلم الغلام يركي را أو إسلامي وحو النبي كسو بحي قرقي إسوغا وجهي سفر حدو أي كم وقت أولي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إله وحن كحم بنيا يركاير سببتين نارتك قبت بادية بما هل برسولك يري يذهب إلى الناس اللي ما ديهي سينيين أي وقعت كيسين أو الصبرين هذا يقول أو الصبر بان نبي قال لي صبر إني دلان بيك فكرة يعني يكو اسنوحوا كفكرة يعني هنونان كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي النبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا إساقا اسكو جيدا ما عدك الوحو جيدو وإساقا كديقا لقد هذه قوم جيسو أي نقحيين قوم جيسو أفلقاديين وجه جيسو الشريف كأغنوفت لقلتو في وإساقا عليه الصلاة والسلام انتو اسكام مسحو انتو ديقا اسكام بيه مال انتي ماركتانا يوم الطائف أيو لها وحا يقود ليان قرن معياني وقوم كيجي له دم بدافو لها هبين هذا كمذا أيو النبي صلاة عائشة قرية يقول كقرنا عائشة أم المؤمنين مرقاس النبي هوستك سوق شيء وعلى عائشة عاوة ميدين بوكيدي ربي جهان عابد عاوة مسك كيدين مرقاس عن كيدي بيتنا وان كدايس كعباديس مرقاب النبي استاجي لبدا آيات سدوا قل علنا يي أيا بلال صلاة فجر بلال وأدمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم
فإنك أنت العزيز الحكيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هبينا للمدى كدادة اللي انتيسا halkuu sujuudda uu dhulka dhigayay bay ilmadu qoysay labada aayadoodna macnaheega waad garanaysaan aayadda hore waxa weeyaan ereyga nebi ciise calayhi salaam uu banka qiyaamo ku odhan doono ilaahay hortii uu isku beri yeeli doono ayaa nebi maxamed naifka dusheeda uu ku lahaa oo ereygee anta qulta linnaas ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah yaa ciisa bna maryam ayaa rabbilciza ku odhan doona maalinka qiyaamaha maadaa ku yidhi qoomkaaga reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigtoona caabuda maadaa ku yidhi markaasuu nebi ciise isberi yeelayaa markuu isberi yeelo buu odhanayaa haddaad cadaabaysana dee waa addoommahaagii haddaad u dembi dhaafaysana dee amarka adiga iska leh ereyga nebi ciise uu banka qiyaamo odhan doono ayuu nebi maxamed ifka dusheeda ku lahaa xataa nazala jibriil calayhi salaam markaasaa lagu yidhi yaa jibriil u tag muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka baa ilaahay ku yidhi yaa jibriil u tag muxamed xabiibkaygii waxaad ku tidhaahdaa ummaddaada waan kaa raalli gelin doonaa kuguna dhibi mayna adiga baa lagu yidhi waan siin doonaa ummaddaada siis aad raalli ku noqon doonto kuguna dhibi mayno iyaka wax adiga dhib ku geliya ka yeeli maynaba iyaka baa lagu yidhi markaa buu nebigu lilmadii intuu iska biyey ayuu salaaddii subax nebigu saxaabada tujiyey aawey dareenka iyo shucuurta maanta ikhwat aliimaani waalislaam aawey shucuurtaas cidna uma maqna ummadda walaalayaal inteenna saalixiinta ee masaajidda soo galaysa ee culammada dhegaysanaysa ee diinta jecel ee diinta baranaysa ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala u damqanaysa innaka laynaga rabaa ummaddan aan u fikirno oon wakhtigeenna 8 saacadoodna masaajiddeenna ku camirno waa mar waa xalaqad weeyaan cilmiga la baran mar qur-aanka la akhrin mar dikri baa la samayn saacad baa la fadhiisan sidii abu darda radia allaahu canhu markii la weydiiyey laydha abu darda saacad wakhtigiis cibaadadiisa ugu qiimo badan noo sheeg baa lagu yidhi xaaskiisa waxay tidhi wuu fikri jiray tidhi bas cibaadada ugu qiimo badan uu abu darda uu lahaa fikir keligii intuu meel fadhiisto ayuu ka fikiri jiray ilaahay cadamadiisa ayuu ka fikiri jiray diinta ilaahay 8 saacadoodna kasbi xalaala 8 saacadoodna xaqa naftaadii xaqa reerkaagii xaqa ubadkaaga salmaan iyo abu darda buu nebigu walaaleeyey salmaan iyo abu darda salmaan baa soo ziyaartay abu darda xaaskii abu dardaayo wuxuu arkay umu dardaayo jirkeyga ay ka muuqato nafaqa daro oo dharkeyguna maaragtaane ku dulgoogo'ay markaasuu ku yidhi waa maxay noloshan aad ku nooshahay waxay ku tidhi saaxiibkaa dee nin adduyo u baahan maaha adduyo ummaddoona uu ka qaaday tiri faraha way dacwaysay moogta walaalkaa abudarda salmaanoo walaalka abudarda laa yuriidu dunya nin adduyo doonaya maaha isagaa dee noo shaqo tegi lahaa oo dharka naga bedeli lahaa oo masaarif noo keeni lahaa soo maahayn ha isagaa naga mas-uul ahaa nin adduyo maaha faruu ka qaaday adduyo qaal waayahay waa sugi uu fadhiistay abu dardaayoo socdaa yimidde markaasay ku tiri war walaalkaa salmaan baa fadhiyo ku sugaya dibadda markaasuu uu yimidday uu salaamay cuntay markaa ayuu soo qaaday cuntadiibuu u dhigay markaasuu ku yidhi dee fadhiiso ila cun markaasuu yidhi may anu waan soomanahay soonka jabi buu yidhi la cun waa sunnee uu la cunay habeenkii bay markaas garab seexdeen mar alle markuu salmaan uu dhinaca dhulka dhigay uu abu dardaana uu leeyahay salmaan uu kaa seexday markuu yidhi isla markiiba abu darda salaad buu u kacay salmaan baa yidhi war yaa seexo jooji salaadooda uu seexiyey bal si fiican hadalka u dhegaysta meel baan u socdaa hadda kolkuusina malaha uu kaa gamay buu haddana yar kacayo markaasuu yidhi war seexo
kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya waqti sahar saacadihii dambe yiri imika ka hadaba hawada tukana labadeenu bay markay wada tukadeen ayuu fadhiisiyo wuxuu ku yiri waryaa Abu Dardaa uu dhageyso rabbiga xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay mid walba xaqiisa si buu ka yiri iska aamus Abu Dardaa ilaa waan xalay salaad leelkiisa laga kala daadiyay oo soonkiina laga jabiyay waliba dardaaran la siiyay ma harine intuu soo socday buu nabiga ku soo dacweeyay wuxuu yaa rasuulallah Salmaan baa yimido soonkaygiina uu iga jabiyay salaad leelkii xalay tolan uu iga manciyay adoo halkan joogo marjicii dhanaaya ayuu hadalka isaguna igu yiri marka nabigu muxuu yiri sadaqa Salmaan muxuu yiri sadaqa muxuu kugu yiri wuxuu igu yiri naftu xaq bay kugu leedahay ehelku xaq buu kugu leeyahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay mid walba xaqiisa si marka buu nabigu yiri sadaqa Salmaan run buu sheegay buu yiri xadiiska ninka lagu akhrinay waa Abu Dardaa mise waa inaka bali sheega xadiiska ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhanna soomana adduunyana faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninka maahin anigii adiga maaha daa'iman jamaacadu waa iska taqaanaanoo nin baa beri 40 cisho aan ka xaynay mid baa qabto xadiiskaas ku akhriyay markaa buu yimid oo wuxuu yiri Sheekh Xuseenow anu inima raacaya buu yiri xadiis aad iga qariseen baa la ii sheegay buu yiri markaas aan ku yiri baxuu hada xadiis way badantay anagu culimo ma niine arday wixii culimada ka soo maqleen dadka u sheegaanay muxuu ahaa xadiisku waa sadaq waxa la igu yiri naftu xaq bay kugu leedahay islaantu xaq bay kugu leedahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyada iga soo kaxayseen aa xuquuqdii soo ma dayicin buu yiri war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeennii baa dulman maanta waqtigeennii adduunyada u batay mise aakhirada baliga jawaaba midku u batay waqtigeennii adduunyuu u badan yahay qalbigeenna maanta maxaa ku weyn adduunya mise aakhirada adduunyada ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysaa saadarteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican waana walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay muslimiinta waxay walaalo ku yihiinna waa maxay alislaam diinta islaamka walaalo ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka kale waa walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calaa kulli muslimin sadaqa waagu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu dalxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatay madluumka ayuu xooggiisa ku caawinoo uu u gurman oo wuxuu leeyahay war ninkan waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaas samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu yidhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaas samayna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka muminka sadaqa ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayay sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiista isordhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa
dilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiinta walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horeeye la gaadhay wuxuu leeyay biyo igu qabta Cikrimu ahaa markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kaloo ka shisheeyoo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadhay biyaha kiiba lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninna uu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayuu leey isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anu ha noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa jooga muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaa ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiis ku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culammada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji مسكيتي النبي قال نصوب عليه الصلاة والسلام وخزرجي هلكا وحافظ الأنصار أوس خزرج مهاجرين حلقات وحدول تجي بلال يا سلمان يا عمار يا فديان مرقاسو كوا هديت ولا محل وقبا هاي يقول كوا نينكو تولكي بو هلاي معاذ بن جبل بانيكي هلكا قبتي والمحاتري وان كفتمنا هذا كان وان هداي مرقاسو معاذ هلكا اسقو هيو نبي نينكي وجي صلى الله عليه وسلم مرقاسا رسولك وجهيسي بدلمي مساجدكو سو غلay منبركو فولay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeeray khudbad buu nebigu bilaabay khudbad dheer ma hayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinu waa mid keliya buu yidhi diintiinuna waa mid keliya carabiyaduna aabba iyo hooyaynima abuu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buuhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetol waa بلال الحبشي سلمان الفارسي صهيب الرومي رضي الله عنهم ركي دين الإسلام كأساس كوها أيو كل يهكوا محل وقبها نكو تلكي به لحد تولي كلمة دا أو يربا إلهي نك الرحمة دي كلا نقدم مر لبعض ودين إلهي وكقات سقوا مرتدين لسود لي مرجع إخوة الإيمان والإسلام خير بين نجا موضع ضد مسلمين
oo luqo keliya ku hadlayaan nahay inaku ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa noo nicmeeyey wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaabillaahiya iyo maaragtaani madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashki imika matcamaan ka cuntaynayna ayaan ku aragnay nin dhallinyaro sacuudi oo surwaal gaaban halkaa ku jooga sita jiwaar masjid nabowi agtiisa matcam masaajidkii nebi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaban sita sheekh ismaaciil baa iga bul xuseen oo eeg buu yidhi haan eegaa baan ka yidhi sheekh waa wax laga murugooday jabuuti oo waddan uu gaal isticmaarsanayeyna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacawiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiye ilahay aan ugu mahadino lain shakartum la asiidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru ljawaarix bilxamdi taduumu nicam وبالشكر تزداد النعم حمدك وكعربك ويان شكرك وكعملك ويان صلاة الليل كنبيك وكعي ركعات كلي وكنت قد شن جزية بد إلى لغيه برين عائشة كتري لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر محوك جوابي أفلا أحب أن أكون عبدا هذا هو الشكر marka nicmadda ilaahayna siiyey inaan ku shukrino oo masaajideenna tacliinteenna dacwadeenna khayrka aan ka wada shaqayna soo diyaar manihin insha allah dhahada waan soo ziyaaranay saad noo soo dhaweyseen ardaydiina culimadiina quraadiina allah inii soo dhaweeyey ninkana anaguna jabuuti baan nagu soo dhaweynaa noo kaalaya insha allah ya reer Nairobi reisli ma socotaan maxay nagu dhacay waxu baad dhisaysan aqla dhaadheer إن شاء الله خير كانوا وانبيرنا صو ديار منهن ذنبنا الله داف ذنبك والدينتنا الله داف دينت الله إنه معاني مركنا الله شافيه موتاتنا الله هو نحريست مسلمين تميل جوغان كربدا يعريق الله كقاضي موافقين من ضمن مسلمين تميل جوغان الله سيو اسمع ذكر الله إن هديه صلى الله على نبينا محمد سامحوني مشايخ